طب كاسكيك طب آخرها دارو دادعنا آخر مولى ديار بانونا هنا ندادعنا ولي يميل يومين صفري سنين عضونا waxay doonaan bahan noqdaan goob iyo sharafnimo ku joognaa guryaha iyaga laakiin dawladda kulanti wanaagsan war degdeg ah magaalada Zeylac waxaa ka socda banaanbaxyo xoogan oo ay dhigayaan shacab careysan kuwaasi oo ka soo horjeestay amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland kadib markii maanta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdullaahi Sandheere oo la hadlay warbaahinta uu soo rogay amar ah in magaalada Zeylac aan lagu qaban karin bandhig waxaa lagu madalsanaa in magaaladaasi lagu qabto dabaaldega bandhiga xeer ciise hase ahaatee waxaa arintaasi ka soo horjeestay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo sheegay in magaaladaasi aan lagu qaban karin wax bandhiga isaga oo sheegay ujeedada laga leeyahay in ay tahay in la ilaaliyo amniga guud ee Soomaaliland waxa uu sheegay in tani aan lagu raali gelinaynin beelna aan lagu fogeynaynin hase ahaatee waxaa arintaasi ka soo horjeestay shacabka ku nool magaalada Zeylac iyaga oo sheegay in ay qabanayaan bandhigaasi hase ahaatee Soomaaliland ayaa arintaasi diiday waxaa magaalada Zeylac ka socda banaanbaxyo oo ay dhigayaan shacabka magaaladaasi iyaga oo wadooyinka ku gubaya taayaro wadooyinkana jaray warbaahinta ay la hadleen waxaan hadaladoodii ka mid ahaa Soomaaliland calakeeda ku hoosmaray oo ku xariiray dhulka Soomaaliland dhexdeeda oo calakeega aanu dhimanay ee ragayga u dhintay ee nafyada loo soo dhimanay alin iska daaya saacad dib uma dhacayso saacad dib uma amni darteed baan u qabtay yiri amni ma qabanna dab buu shiday beesha ciisana waxaan leenahay dib baan u tashanaynaa tala dambaa inoo dambaysa agasta wax naga dambeeyay ma jiro waan diyaarnahay waan imanaynaa Zeylac ciisana meeshuu ka joogaba ha ka yimaado oo annagoo ah gendihii amba goortidii beelweynta ciise oo fadhina gurigii ogaas Mustafa Maxamed Ibrahim annagoo fadhina waxaan baaq u diray bishuna tahay 13 bishii 11aad waxaan baaq labaad u diraynaa oon ka diraynaa baaqi ka soo baxay madaxda ra'iisul wasaarka wasiirka arrimaha gudaha ee saaka uu kaga dhawaaqay Zeylac taabaan baaq ka soo diraynaa waxaan u diraynaa beelweynta ciise halkay dooniba ha joogtee ballantii Hargeysa aan kala imanay in guriga aaba ku baaqnay ee Soomaalida dhaqanka odayada Soomaalida u baaqnay gebigoodaba oday dhaqameedka gebigooga aan u baaqnay ee beesha ciise u baaqnay waa sideedii waa bishii 12aad shanteedii maalin iska daaya saacad dib uma dhacayso baaqa ka soo baxay een filaynin ninka wasiirka ah ee dawladda ah ee madaxdii oo dhan watay ee saddex habeen Zeylac galay shirka ka soo baxay baaqa ka soo baxay ma qaadan mana yeelayno mana yeeli doono mana cambaarayno oo war cambaarayna ma oranayno mana caayayno laakiin waxaan u aragnaa fidnad uu dadka dhex dhigay baan u aragnaa annagu madax meel ka sarreeyay ma jirto madaxweyne wax ka sarreeya ilaahay un baa ka sarreeya madaxweyne wax ka sarreeya ma jiro madaxweynaha iyaan ku soo heshiinay in waqtiga aan qabanno
oo waqtigii hore dib nooga dhigay oo yidhi farsamo darteed dharaartii la qabtay dharaartii xeerka la ansixiyey ee halkaa laga ansixiyey dharaarta ha noqoto anaana furi anaana ka aabad noqoni iyuu yidhi madaxweynuhu ilaahayna uu ogaa annaguna waan ogayn sidaa baan ku kala imanay sidii baan ummadda u sheegnay sidii baan ciise u sheegnay ka damba meeshu ka yimid ma garanayno ninkii keenay baa garanaya ninkii waxaa damba keenay isagaa garanaya wixii uu ku keenay isagaa la weydiin laakiin annagu waxaan aragnaa reere nabada iyo dad nabada oo walaala ah fidnad dadgelinaya nin fidnad gelinayaanu aragnaa fidnadna hadalkaanu aragnaa waxaan baaq dheer u diraynaa annagu waxaan leenahay sidiisii weeyiin dadkii aan u baaqnee odayadii dhaqanka ee Soomaaliyeed ee say u dhannaayeen Soomaaliland odayadeedoo dhan gebigeega warkii aan gaadhsiinay ha ka soo qayb galaan waa sideedii beesha ciisana waxaan leenahay dib baan u tashanaynaa tala damba inoo dambaysa meesha doonta joognay waa tashanaynaa degdeg baan u tashanaynaa hadalka wasiirkan ka tashanaynaa wax kale kama tashanayno balanti waa sideedii iyadu ma ina balanti la noqday hamoodina beesha doontiiba jooga laakiin hadalka wasiirka hadduu ka laami waayo oran waayo war waan khaldamay waan iniga daayay hadduu oran waayo taabaan ka tashanaynaa si degdegaan inuu baaqi doona haddii Allah yiraahdo oo isku gebigeenu waa isku imaynaa saddexda meelood kale oo joogni iyo debedaba waan isku imanaynaa taas way noo dambaysaa annaga niisoo sheegi doona ma beel fidnadeed ma lihin ma yidhi weligay ma yeelan weligay fidnad shaqa kuma lihin waana yaqaana taariikh baan leenahay Soomaalina annagu kuma Soomaaliya iskama hor imanna wax Soomaali la yiraahdo dadka kala jiijidan annagu dad Soomaaliyeed ciise oo dad Soomaaliyeed ay islaayeen horeba looma arag beel nadbeed baan nahay meel kale hata laga xukumo ogaas qura leh indha qura leh dhiga qura leh boqol dhigood annagu ma kala hin boqol qalbina ma lihin qalbi qolaan leenahay wixii aad noogu ballan qaaday annagu halkii bay noo tahay saacadii buu ma dhigayna saacad aad u dhigaysa madaxweynow hadda yeelsanin baan ku leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah tanaa ilaahi salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam shirkan jaraa'id ee aan ku qabanayno gurigii ogaaska beesha ciise ogaas Mustafa annagoo ah gendihii beesha ciise wuxuu daaran yahay go'aanka ka soo baxay kii aan kaga jawaabaynay ka soo baxay muxuu ahaayay saylac ka soo baxay saaka kaasaan kaga jawaabaynaa waxa weeyin meel kaliya oo haa iyo meel lagu yiraaho annagu wali ma arkin gandihii baan nahay madaxweynaha Soomaaliland odayaashii hor fadhiistay baan nahay been ma sheegayno wax been oo sheegayno ma jirto ninkii yiri maaragtay bisha waa in xafladda la qabto nabadna lagu qabto madaxweynuhu ahaa wasiirku ninkii afkiisa uga waramay ee maaragtay anna waa nigu raacay uu yiri madaxweynaha yahay arrinkaasi dabbushida ninka halka baaqa ka jeed maaragtay go'aanka ka soo saaray amni darteed baan u qabtay yiri amni ma qabanna dabbushiday waxaan leenahay dabka aad shiday wixii ka dhaca Cabdallow adiga Allah ku weydiiya waxaan anagu leenahay ballantii baan ku soconnaa wax dib u dhacay ma jiro adiga sidaa baan ku leenahay Cabdallow waxa kale oo leenahay beesha ciise meeshay dooni ha joogto debad iyo gudo meeshay dooni ha joogto ballankeenu waa kii wax iska bedelay ma jiro ni walba saad u diyaar galaysnayd marka horeba u diyaarsanow wax dib u dhacay saacad dib uma dhigayno saacad waxa weeyaan halka joogtiin baka diyaar galooba hadalka yagu ma badno arrinka ha ka noqdo amni ma sameynina dabbu shiday dad walaalo isla yaalu isku diray uma arkayno inuu amni darteed ka hadlay daraad kolkaan la joognay de wuxuu nalaha marxaba isaga waliba qabsaday oo yiri maalinta ha dhacdo waan ku raacnay waxa maanta iska bedelay anagu ma garanayno de nin wasiira oo been sheegaya wali anagu ma arag annagana ballanteedu waxba iska bedeli mayso meesha doonta ciise u joog na dhageyso waxa aan baaqa aan ka soo saarnay ee dib looga hadlaynin waa ballankii oo sidiisii ah saacad aan dib uga dhacayn nin ugaadhagasa wax naga dambeeyay ma jiro
وان ديار نهي وان إيمان إينا سيلا عيسى ماشو كي جوجبها كي مادو وإيمان تاينا واتا متكلا دبدي جذب جوج وقت الدوبة نسينا إن مارتي ثلاث عن قطشانو وقت الدوبة نسينا إن هدقدقين هدك إنه قانك وقت الدوبة نسينا إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.